بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وبرنامج كلي موضوع عصب وإنه wadaagi doono maanta. Baraha bulshadu waa meel inoo fududeysay wax badan oo waagi hore u muuqday wax adkaa ama aan la gaari karin. Waxayna ka qayb qaadatay kor u kaca xiriirada dadka iyo iska warhayntooda. Sidaas la mid ah, waxay mararka qaar saameyn xun ku yeelataa isxiriirinta qudheeda. Haddii aynu u nimaadno biyashubka mawduuceena, waxaynu isla eegi doonaa qodobo kooban oo ku saabsan sida aad ku soo jiidan karto qofka aad xiisaynayso adigoo isticmaalaya kaliya chat-ka miyaynu nidhi haa chat-ka. sidii caadadu ahayd, barnaamijka waxay idiin soo gudbinaysaa anigoo hayaan jaamac noox ayaan dhalad ku soo dhawaada. qodobka koobaad, marka uu qofku siiyo nambarkiisa WhatsApp-ka ama aad ku darsato ciwaankiisa Facebook-ga, isku day inaanad markiiba fariin u dirin. sug 2 maalmood, intaas kadib fariin u dir. waa maxay sababtu? Sababtu waxa weeye in qofkaas laga yaabo qof kasta oo ay isbartaan inuu si degdeg ah ula soo hadlo. adiguna waa inaad u muuqataa qof ka duwan dadkaas oo aan xiiso badan u qabin inuu degdeg ula sheekaysto. faa'iidada kale ee talaabadan leedahay waxa weeye inaad u muuqanayso qof ku mashquulsan hawlihiisa gaarka ah oo noloshiisu micno leedahay. qodobka labaad, marka ugu horeysa ee aad la hadasho qof gaar ah, ha ku bilaabin hadalkaaga ereyada la isla yaqaano sida ma fiican tahay, sidee tahay, xagee degan tihiin iyo kuwa la midka ah. iska ilow hadallada caajiska ah, una dhig qaab kale oo xiiso leh. tusaale ahaan, sawir ama boosti gaar ah oo qofkaasi soo dhigay ka falceli oo wax ka dheh. magaalo gaar ah oo uu booqday, wax ka weydii. tus sababta aad fariinta ugu soo dirtay inaanay ahayn inaad bilaa camal iska ahayd meelna iska fadhiday ee ay wax gaar ah kugu soo kalifeen. qodobka saddexaad, markasta fariin ha u dirin qofkaas. isku day inaanad inta badan ku horeyn bilaabista hadalka ee sug inta uu isaguna isku hawlayo inuu fariin kuu soo diro. hana la hadlin xilli kasta ee marar gaar ah fariin u dir. marka aad qofka ku badiso fariimaha, waxaad dareemaysaa nooc xorriyad la'aan ah. taasina waxay keenaysaa inuu iska indhatiro fariimahaaga. waxaanad ku dadaashaa fariimahaagu inay noqdaan kuwa gaagaaban si ay xiiso u yeeshaan. qodobka afraad, ha weydiinin mawduucyo si fudud u soo xidhmaya. marka aad qof weydiiso su'aalo lagaga jawaabi karo haa ama maya, waxaad sabab u noqonaysaa wadahadal kasta oo aad bilowdo inuu si dhaqso ah ku soo xidhmo. taas beddelkeeda, fur mawduucyo u yara baahan falaqayn si qofka wadahadalkiinu u sii socdo. qodobka shanaad, ha weydiin qofka waxyaabo dhibaya. ka soo qaad inaad qofka weydiisay su'aalo ay ka mid yihiin lacagta uu ku shaqeeyo bishii, xiriirka kala dhaxeeya reerkooda, xanuun gaar ah oo haya iyo kuwo kale oo la mid ah. waa hubaal in qofkaasi ka dheeraanayo la sheekaysigaaga, weliba dhibsanayo su'aalahaaga. ku dadaal inaad siiso xorriyad buuxda qofka. ha weydiin su'aalo xasaasiya, hana faragashan waxyaabaha aanu kuu oggolayn inaad ogaato. qodobka lixaad, qodob kale oo muhiim ah ayaa ah inaanad si degdeg ah uga jawaabin fariimaha oo qof gaar ah kuu soo diro. markasta si ku talagal ah waqti dambe uga soo jawaab fariimihiisa. taasi waxay keenaysaa inuu kuu arko qof aanaad u xiisaynaynin la hadalkiisa, taasoo keenaysa inuu ku dadaalo sidii uu ku noqon lahaa qof aad xiisaynayso la hadalkiisa. ugu dambaynna, ha wada siin qofkaas xogtaada oo dhan, waxaad qabato, waxaad jeceshahay, waxaad necab tahay iyo dhammaan noloshaada. markasta u muuqo qof aan xogtiisa la wada heli karin. taasi waxay kaa caawinaysaa inaad qabsato qofkaas fakarkiisa, weliba uu waqti geliyo sidii uu ku ogaan lahaa waxyaabaha aanu ka ogeyn noloshaada. kana taxadir inaad ammaanto sawir kasta oo qofkaasi soo dhigo bartiisa. taasi waxay kuu ekaysiinaysaa qof iska dhaadhicin wada, ammaantiisuna aanay qiimo lahayn. intaasi waa qaar ka mid ah tallaabooyin aad ku qabsan karto fakarka iyo danaynta qof aad xiisaynayso, adigoo ka faa'iidaysanaya awoodda baraha bulshada. ma jiraa qodob aad si gaar ah uga faa'iiday? nagula wadaag qaybta commentiska. fakarkaagu waa muhiim. aad baa u mahadsantihiin. salaamu calaykum.